yahay madaxweynaha dalka markad wasiir soo magacaabayso maxay haytay maskax ahaan bal iyo mentally iyo physical bal inuu caafimaad qabo wasiirka aad noo keenaysaa bal horta marka hore noo soo hubi gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex oo ay weheliyaan mas'uuliyiin iyo qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex oo kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay dhibaatooyin iyo cagad juglayn uu ku hayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland shaqadii xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex waxaana istul taageen isla markaasina ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka wasiirka waxbarashadu uu ku hayo socoshada hawl maalmeedka shaqo ee xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Maroodi Jeex Cabdikariin Cali Caaruf saddex himilay lahayd waxa weeye waa fidinta tayadhowrka oo ah kormeerka iyo maamul wanaaga ama maamul daadejinta haddii aan dul istaago labada qodob ee fidinta iyo qodobka maamul wanaaga anu ka gudoomiye ahaan waxa la magacaabay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex bishii December 24keedii xilkana waxa la wareegay bishii koobaad 16keedii muddada aan joogay saddexda bilood ku dhow muddadaaba shaqada gobolku waxay ka socon lahayd waxa weeye hadimooyinka wasiirka wasaaradda waxbarashadu uu ku hayo taas oo nidaamkii waxbarasho si baalmarsan siyaasadda waxbarashada ee qaranka uu burburiyay deegaanadii gobolka tusaale ahaan gobolka Maroodi Jeex oo ka kooban degmooyin aad u fara badan wasiirka wasaaradda waxbarashadu gobolka Maroodi Jeex wuxuu ku soo koobay laba degmo adana wuxuu ku saleeyay ma aqaan isagoo mararka qaar sheeganaya inay yihiin degmo doorashooyin culayska ugu badanna aniga saareen isaga ma fuulaan culaysku mana saarna cabashadu mar walba aniga ay ku xidhantahay labada degmo ee ku soo koobay waa degmada Hargeysa markaan leeyahay degmada Hargeysa waa intee degmada Hargeysa su'aalaha waxa hoos imanaya degmada Faraweyne degmada Daarusalaam degmada Laaskeel Sabawanaag Dacarta Balaymataan Cadaadley dhammaan degmooyinkaas oo dhan baa hoos imanaya degmooyinkaas oo dhan waxa ay hoos tagayaan gudoomiyaha degmada waxbarashada ee Hargeysa marka haddaba su'aasha koobaad ee isweydiiyay taasi ma maamul daadejin baa mise waa maamul ururin taasi ma maamul daadejin baa mise waa maamul ururin marka uu wasiirku ku adduunayo ama oranayo waxaan sameeynaa maamul daadejin taasi ma maamul ururin oo shakhsi gaar ah oo ay isku hayb yihiin oo ku soo ururiyay dhammaan degmooyinkii kale maamulkii gobolkan oo cagaha u qabtay degmada kale waa degmada Salaxri labada degmo ee wasiirku magacaabay ee uu ku tilmaamay inay yihiin DOyo ama District Education Officers wax la yiraahdo ama gudoomiyaasha waxbarashada degmooyinka oo ah degmada Hargeysa oo ay intaas soo deegaan hoos imanayo iyo degmada Salaxley labada degmo haddaan in yar dul istaago tirada ardayda labada degmo iyo dugsiyada degmada Salaxley 24 dugsi baa hoos yimaada tirada ardayduna waa 2373 degmada deegaanada kale waa degmooyinkii kale ee Daarusalaam Faraweyne Laaskeel Cadaadley dhammaan degmooyinkii kale Balaymataan waxaas oo dhan marka laga reebo degmada Salaxley aanay ku jirin degmada Hargeysa waxay dugsiyada tirahaan ku dhow yihiin 100 ama hal bay dhiman yihiin 100 tirada ardayda ee deegaanada dugsiyada ama degmooyinka ku jira waa Faraweyne Daarusalaam Laaskeel Cadaadley Sabawanaag Dacarta Balaymataan waxaas oo dhan waxa tirada ardaydu waxay ku dhow yihiin 9000 oo arday wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan weydiinayaa sharciga hal degmo 24 dugsi ku yaalaan ka dhigay degmo waxbarasho oo u yeelay gudoomiye degmo waxbarasho ama DO ama District Education Officer degmooyinka inta leeg
ee tir ahaan iyo arday ahaan iyo dugsi ahaanba ka badanna ka dhigay kuwa DO aan lahayn shalay waraaqdii ay soo saareen gudida uu ku gabanayo wasiirka wasaaradda waxbarashadu waa tan gudidaas oo aanan garanayn mandate-keeda ay iyagu wax ku kala saarayaan cidda siisay waxa ay gudoomiyaashii degmooyinka ee hore ay u magacaabeen xilal degmada Hargeysa tusaale haddaan soo qaatay gudoomiyihii degmada Laaskeel oo ninkan Axmed ee agteeda fadhiya Axmed Maxamed Xasan waxa laga dhigay kormeerka degmada Hargeysa awalna wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Laaskeel gudoomiyihii degmada Daarusalaam oo Axmed Maxamed Qalinle waxa laga dhigay madaxa shaqaalaha degmada Hargeysa gudoomiyihii degmada Faraweyne oo Maxamed Cali Xuseen waxa laga dhigay madaxa waxbarashada dadban ama non formalka ee degmada Hargeysa waana gudoomiyihii degmada Faraweyne ee waxbarashada gudoomiyihii Balemataan isaga waxa laga dhigay madaxa dheelitirka degmada Hargeysa gudoomiyihii Cadaadley waxa laga dhigay madaxa farsamada gacanta ee degmada Hargeysa gudoomiyihii Sabwanaag waxa laga dhigay madaxa waxbarashada tooska ee degmada Hargeysa dhamaan gudoomiyaasha degmo oo hore u jiray waxa dhamaantood laga dhigay oo lagu soo ururiyay degmada Hargeysa marka wasiirka waxaan weydiinayaa wasiir marka aad leedahay saddexdii himilada wasaaradda waxbarashada ayaan ku saleynayaa maamulkayga ma maamul daadajin baa mise waa maamul ururin aad dad gaara oo aad isku haybtiin aad maamulkii gobolka gacanta u gelinayso labada degmaba wasiir waxaad u magacaawday laba qof oo aad isu haybtiin labada qof ee aad isku haybtiin mid wuxuu maamulayaa hal degmo oo 24 dugsi oo kaliya ku yaalaan midna wuxuu maamulayaa dhammaan degmooyinkii gobolka Maroodijeex oo dhan anuu ka gudoomiye gobol ahaan shaqadeedu maxay noqonaysaa horena waan ka su'aasha waan ku weydiiyay imikana waan ku weydiinaya adoon maanta xilkayga qaadin haddana inaan sheego maanta dhibta taagan waa taa sababtoo waxaad qarsataa oo ku qarsadaa culayska ugu badan anigu haystaa ee deegaanada ka yimaada adeeg kuma haysto geesooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodijeex kuwaasi oo istul taagay dhibaatooyinka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ku hayo shaqaalaha xafiiska waxbarashada ee gobolka Maroodijeex waxaan gudoomiyaha waxbarashada degmada Laaskeel muddo 12 sanadoodana waan ahaa sharcina waan ku joogay imka degmada Laaskeel waxa jooga usduwayaashii caafimaadka xanaanada xoolaha beeraha cadaaladda waxa leeyahay beeraha xanaanada xoolaha biyaha diinta waqafta dhammaan wasaaradda kasta waxa jooga usduwaheedii maanta waxaan garan waayay sababta loo yiri usduwihii wasaaradda waxbarashada ee degmada Laaskeel joogaana waa xaaraan kuwii kalena waa xalaal waxaanu nahay shaqaalaha waxbarashada gobolka Maroodijeex qaybta Maxamuud Axmed Cali waxaanu nahay shaqaale waxaanu nahay dumar waxaanu ka lixda subaxnimo soo shaqo tagnaa kowda duhurnimo ka baxnaa qaranka noo shaqeynaa toorno uma shaqeyno ilaahay dartii baan noo shaqeynaa cidna uma habranayno waxa weeyaan dhib iyo tacaddi ayaana lagu hayaa maantada oo ugu dambeysay imika muddo 3 bilooda annakoo dumara annakoo shaqaale ayaa shalmadahana laga soo jiidaa maxay ahayd takriinkan la soo jiijiita waagi baryaba waa muddo 3 bilooda maragyo marxaati baan noo haynaa sawiradiis maanta ugu dambeysana laga qaaday baan imika kamarada idin duubi doonaa maxay ahayd waagi baryaba waa nalo caga jugleynaya afar inaan oo yar oo la toorna ayaana soo diray oo shaarka toorna noo xidhanaya ayaa nagu tacadiyaya way noo caga jugleynayaan maantadaas u dambeysay qoladina kamarada duubaysa imikadaaba weydin tagi saldhiga qudhac dheer waxa ku xiran waashmaan raqa oo gobolka noo joogay oo markan maana ku soo baxsanay ee xafiisyadiina lagu jajabiyay ee aanu nafahayaga u soo baxsanayno soo dareernay ee naloo hanjabay ee nala soo caayay
ayaa waxa dhacday waashmaankii baa la yidhi halkay dumarku joogaan guryahoodina soo tus ma garanaya buu yidhi furayaashii keen baa la yidhi wuxuu gabadh waliba xafiiskeeda iyada xidhataa shaqaalihii gobolka Maroodijeex bari waxaanu ka cabanaynaa wasiirka iyo qolow shaarkiisa ku shaqaysanaysa maalin kasta waxa la noogu hanjabaa qabiil waxa la nagu yiraahdaa degmooyinka magaalada Hargeysa anagoo ka nimaadna daankiliya tad ka timaadaan maanta ugu dambeysay inta laga soo saaray xafiiskayagii ayaa askarna nala dul keenay waanu iskaga soo baxnay waanu soo xidhnay xafiisyadii waxaan ka cabanaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo inta shaarkiisa sidata tacaddi ayaa muddo 3 bilood ah nagu socday oo ka baxa xafiisyada ah oo sharci noo soo mareen aanay jirin gudoomiyaha anaga naga mas'uula waxa xaq u leeyihiin gudoomiyaha intay hor fadhiistaan oo yiraahdaan saasan sameynana gudoomiyaha aan soo marin ayay doonayaan anaga inay dusha naga yimaadaan oo xafiisyadiisa naga saaraan taasina xaq noogu ma laha sharcigana way garanayaan hadaan aysan dhatiraynin haddada aanu joogno waan soo baxsan naftayda baan la soo baxsan dumar baan qaran baan u shaqeynaa qarankii yaa lagu sameeyay inaan shaqeyno bal qof shaqadii soo galay hargay habeen qof bili aadan iska ilaalinay ku soo duulaya maxaad ku shaqeynay ma fadhihi kartid niyadaada shaqaalihii gobolka bari dhammaan gudoomiyuhu fadhiyo madaxdii gobolku ay fadhido mushkiladda ugu badan inay tahay iyadoo madaxdii wasaaraddu ay halkii marjac ahayd loo noqonayay ay tahay kuwa noogu dhibta badan hase ahaatee aanay ahayn halkii aan anagu nasteexa ka sugeynay ama waan islahayn waxa weeyaan madax meel loo dhaafay ma jirtay madaxdiinii baa meesha fadhida ama aan ku dhiiran lahayn ayaa nin jeclaysi meesha yaala oo nala kala jiidanaya oo intii aan la doonaynin dibadda loo saaraya intii la damacsanaana darajo loo sameynaya markay noqoto go'aan qaadasho ama ay noqoto tala ka bixin cidda wax talada ka bixisa ee ugu sareysa waa wasiirkii ayaa isaga oo madaxdii wasaaradda ah ayaa shaarkiisina loo soo xidhanaya oo la oranaya wasiirka ayaana soo diray haddaba wasiirku arrinkan miyuu loo og yahay dadkan istaba yaacaya mise lama ogaa su'aasha Maxamed Cumar Daariq RTN Hargeysa